barnaamijka ogaalka dunida. يا نفس إن لم تظفري hadal iga yaabiyay. shahaadada dhalashadu waa warqad, shahaadada guushuna waa warqad, shahaadada qalinjabintu waa warqad, warqaduhu waa ay sii socdaan. caqdiga guurkuna waa warqad, baasaboorku waa warqad, dukumentiyada la dhigo waa warqad, dhaqan wanaaggu waa warqad, invitationada munaasabaduhuna waa warqad. nolosheennu waxay u taagan tahay warqad la dhexgeliyey, ayaamuhu iyo maalmuhuna duuduubayaan, kadibna ay jeexayaan iskana tuurayaan. adduunyada dhammaanteed waa warqado. meeqa ayuu qofku u murugoodaa warqadahaas dartood, meeqa ayuuse u farxaa warqadahaasi dartood. balse warqadda keliya aysan suurtagal ahayn qofna inuu arkaa waa warqadda shahaadada dhimashada. haddaba u shaqayso iyada, waa warqadda ugu muhiimsane. xilliga aad dhallinyarada tahay waxaad haysataa awood lagu daray waqti, balse ma haysatid maal iyo hanti kugu filan. marxaladda iyo xilliga aad shaqaydana waxaad haysataa maal lagu daray awood, balse ma haysatid waqti kugu filan. xilliga duqnimada iyo sheebnimadana waxaad haysataa maal lagu daray waqti, balse ma haysatid awood. tani waa nolosha adduunyada. markay shay ku siiso, shay kale ayay kaa qaadanaysaa. badanaa waxaan aaminsannahay in nolosha dadka kale ay ka wanaagsan tahay nolosheenna. qaarkeenna wuxuu aaminsan yahay in nolosheennu ka wanaagsan tahay nolosha dadka kale. waxaa oo idilna waxaa u sababa hal shay oo nolosheenna muhiim u ah ayaan weynay, kaa oo ah qanaacada. haddii ay jiri lahaayeen dukaamo iyo baqaaro waaweyn oo lagu iibiyo sacaadada iyo liibaanta, dadka oo idil ayaa u degdegi lahaa, waxayna ku gadan lahaayeen lacagta ugu qaalisan. balse jaahil ayayba ka yihiin oo waa masaajidda. adoo mahadsan, fadlan si wanaagsan u dhagayso oraahdan. haddii aad doonayso inaad ogaato darajada aad ka joogto alle subxaanahu wa tacaala agtiisa, eeg darajada uu alle subxaanahu wa tacaala ka joogo qalbigaaga. xikmad iga yaabisay. caddaanku micnihiisu maahan qurux, madowguna micnihiisu maahan xumi. karfantuba waa ay caddahay, aad ayayna cabsi u leedahay. kacbaduna waa ay madowdahay, aad ayayna u qurux badan tahay. qofka bini'aadamka ahi akhlaaqdiisa weeyaan ee maahan muuqaalkiisa. ka hor inta aadan indhaha kor u qaadin oo aad allah subxaanahu wa tacaala wax kaa maqan weydiisanin, indhahaada hoos u deji oo alle uga shukri waxa aad haysato. alxamdu lilaah, alxamdu lilaah. talo qaali ah. ku qurxi qabrigaaga alaabtan ugu wanaagsan: salaada, sadaqada iyo qur'aanka. haddaba arrimahan u degdeg inta aadan safarka u bixin ka hor.